waa shirweynihii labaad ee dalada Al-Siraaj oo ay ku midoobeen in ka badan 50 madrasadood oo ka jira magaalada Hargeysa ee caasimadda deegaanada Somaliland waxaana munaasabadani u ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda diinta iyo waqaafta ee Somaliland xubno ka mid ah mudanayaasha golaha baarlamaanka culimada diin ganacsato kala duwan badi maamulayaasha madaarista ku midowday daladani hoggaanka sare ee dalada mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale waxaana shirweynahani oo daarana u diyaar garowga weynaynta bisha Ramadaan oo fooda inagu haysa iyo ballaarinta tayeynta iyo xoojinta tartamada la qabto bishaasi ee dhanka Quraanka ah dhankooda faahfaahin ka bixiyay ujeedka guud ee shirka gudoomiyaha dalada Al-Siraaj Sheekh Cabdiraxmaan Cismaan Xasan xogayaha daladaasi Sheekh Faad Maxamed Nuux iyo xubno kale oo ka mid ah maamulayaasha madaarista ku midowday daladani caawa aynu halkan joogno oo maamulayaashii halkan ay fadhiyaan maamulayaashii oo kali ah macallimiintii aanay markaa joogin way macallimiintu haday yimaadaan halkan ma qaadi karto waa maamulayaashii oo kaliya waxa uu kulan kari daaran yahay aynu iskugu nimid tartankii Ramadaanka ahaa u diyaar garowgoodii iyo wada tashigoodii ayagu awalan naftooda ku tashanayaan kadibna ay walaalada markaa maarta maxaanadahay ahlul khayrka ee khayrka jecel ay ku tashanayaan si ay khayrka iyo wanaagga ay hayaan ay ula wadaagaan akhiran waxaan ku gabagabeynayaa kelmadayda iyo hadalkayga quraankii maanta waa inoo baahan yahay garab istaagiisa iyo kaalmeynteena inaka u baahan qof walba wixii uu quraankii iyo meesha kaga aadan ee uu markaa ka qaban karo inuu ka qabto dhammaanna aynu u kacno waxaanad ogaataan kalaamka ilaahay dagaal baa lagula soo qaaday oo dagaal baa lagula jiraa laakiin ma dareensanin bilxaqiiqa quraanka ilaahay wala dagaalamaya gaalaana markaa doonaysa inay la dagaalanto gacmaheena ka saarto laakiin dadka markaa muslimiinta ee diintooda jecel ayay mari laadahay waxaynu u mahadnaqaynaa marti sharafta kala duwan ee qof waliba uu caawa u yimid inuu u hiiliyo kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo ugu horeeyo xildhibaan Sheekh Axmed Dayib ahna macalinkaygii quraanka marka kulay Soomaalidu hore u maamaado waxaan libaax arkaysa ma godlato waxaan u mahad celinayaa oo mahad ballaaran u jeedinayaa ganacsatada kala duwan eenan magacyadooda halkan ku soo koobi kareynin sanadkii hore Ramadaantii hore tartan qiimo badan oo arday fara badan oo ilaa 400 arday gaaraysa ay ka qayb galeen oo qayb quraanka ah iyo qayb shareecada ah iskugu jira ayaa Ilaahay tabaaraka wa taala suurta galiyo noo suurta gashay arintaasina Ilaahay mahadii si fiican bay u dhacday gaarina waa la siiyay ardaygii ugu sareeyay dahabna waa la siiyay tii ugu sareysay waxyaabo kale oo fiicanna waa la siiyay ardaydii ka hooseysay Ilaahayna tabaaraka wa taala waxaan ka baryaynaa tii tuka wanaagsan inay sanadkana suurta gasho intaasi ka bacdi waxa iyaguna madasha ka hadlay xildhibaan ku cadeeyo oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee Somaliland agaasimaha waaxda madaarista ee wasaaradda diinta iyo waqaafta ee Somaliland culimada diin kala duwan xubno ka socday shirkado ganacsi oo ay wada shaqayn leeyihiin dalada Al-Siraaj kuwaas oo qaarkood taageero ka geysta tartamada quraanka ee bisha Ramadaan iyo mas'uuliyiin kale xalku wuxuu noqonayaa horta kow ummadeena in danta guud iyo qiimaha ay leedahay iyo ku wacyigelinteeda aynu ka qayb qaadano inaynu ka qayb qaadano nidaamka iyo maamulka si aynu dacwadda iyo diinta uga faa'iideyn karno waa arrin laga maarmaan iyaduna waxaan ku soo ururinayaa qodobka wasaaradda diinta iyo waqaafta gaabis badan baa ku jira muddadii dheereedaynu soo jirnay oo waxay ahayd wasaaradda waxbarashada dee inay la tartanto waxay ahayd inay hay'adka khayriga ah awood badan saarto
dowladda iyo miisaaniyadda qaranka lafteeda dhismayaashii madaariska ay markaasi ka howlgasho ka wasaarad ahaan waxaan qirayaa ama halkan ka sheegayaa dowladda Siraaj waa sanadkii labaad ee ay wasaaradda diinta iyo waqaafta ka diiwaan gashan tahay wasaaradda diinta iyo waqaafta labada sano ka hor imtixaan aad ayay marisay daladan iyagoo ikhtibaaraya ama eegaya sabirka iyo taxamulka ay u leeyihiin isku xidhnaanta wasaaradda diinta iyo waqaaftu shuruudo badan bay u dhigtay si ay u qaataan liisanka aqoonsiga jumciyadda waxaa loo shardiyey in ay keenaan 50 maamule 50 maamule oo ka diiwaan gashan wasaaradda diinta iyo waqaafta dhammaantoodba liisankii maamulanimo mid walba uu wato iyo kii madrasadiisa waxaa kaloo loo shardiyey inay keenaan dhammaan maamulayaashaasina mid walba uu keeno macallin walba aqoonsigii wasaaradda isla liisankii macallinimo maamulo walba inuu keeno waxaan halkan ka sheegayaa inay jumciyaddii shardigii loo dhigay ayna ku kala yaacine dhammaan ay soo dhammaysteen bal ay ka soo badiyeenba 50kii madrasadooda 54 madrasadood ay noo keeneen markii ay dooneen in la diiwaan geliyo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha runtii kulankan soo abaabulay ee maamulka ah markaa munadamada Siraaj لتحفيظ القرآن الكريم إلهنا سبحانه وتعالى وحنو قبرينا هميلدودا iyo ujeedooyinka iyo ahdaafta ay leeyihiin Ilaahay inuu dhib yareeyo oo fududeeyo dhammaan culimada isoo hor fadhida xuduurkiina iyo juhdiga iyo dadaalka aad kitaabkii Ilaahay caawa aynu u fadhino waxaan Ilaahay ka baryaa subxaanahu wa ta'ala inuu jannaadkiisana inagu casuumo kitaabka quraanka fikirkiisa iyo hankiisa iyo wada tashigiisana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu jannaad inoogu bedelo runtii annaga waxa weeye markii koowaad ay noola yimaadeen annagu dee doorka dhinac walba shirkaduhu door bay ka qayb qaataan wacyiga iyo adeega bulshada annagu waxaan isnirmanaa halkii ugu muhiimsanayd ee ummadda ayaa xoogga saarteen oo ah aqoonta iyo garaadkii bulshada runtii annaga mashaariicdaanu gacanta ku hayno waxbarashada ayay xoogga saaraan oo ay ka mid yihiin madaariska manahijkii ay wasaaradda diinta iyo waqaaftu ay u soo daabacday 2000 ay ugu tala gashay 2020kii runtii munadamada Siraaj waxay ka mid tahay munadamaadka sida fiican noola shaqeeyay annagu siyaasadaha shirkadeed waxaanu dejinaa December November marka sanadku markuu bilaabmay ilaa dhamaadkiisa qorshayaasheedu waa noo dejisan yihiin mid labaadna waa jirtaayo tartan sanadkii horeba shirkadan jooga waa qabatay sanadkanna waa qabanaynaa oo diyaar baan u nahay inaan tartankii quraanka qabanno marka maamulka Siraajna waanu xafiiska way noogu iman doonaan si fiican baynu uga wada sheekaysan doonaa taana dhanka Telecomna waxa weeyaan runtii shirkadu way ka shaqeysaa barnaamijyada quraanka oo barnaamijkan maaragtay qiraa'aadka iyo barnaamijkan kale ee maaragtay bisha Ramadaanba way ku bixiyaan kulli walaalahana insha Allah xafiiska qaabilsan baan ku xidhi doonaa hadii Ilaahay dhaado si wixii taageero ah iyo runtii garab gal ah ay shirkadu uga caawiso anigu shirkadan aan maamulay Sunpower ma naan qaban tartan quraan iyo laakiin waan ka qayb qaadanaa waxyaalo badan markii dadku noola yimaadaan waxyaalo badan waan ka qayb qaadanaa waqtigii corona ayaa macallimiin aad u badan oo maaragtay dawati meel walba istaagtay waxa ugu yareen qaban karnaa waxa weeye inaanu macallimiintii quraanka qaar badan oo kamid ah aanu leedkii xataa ka deynay intiinu isalay ila dadka la soo wada heli maayay intiinu isalay inuu raadi madrasadii ay xidhayeen annaga idinka deynana bixinana masaajidada la dhisay waan ka qayb qaadanaa dadku markii noo yimaadaan marka insha Allah xafiiska marka noogu timaadaan waxaan ballan qaadanaa wixii nala gudboon inaanu ka qayb qaadano shirkadda tawfiiq ahaan insha Allah wixii arrimaha nagala qabsana waa ka qayb qaadanaa